Bismillahirrahmanirrahim. Kusoo dhawaada Somali Tutorials. Maanta waxaan duubaynaa cashir yar oo ku saabsan sidee loo save gareystaa ama sidee loo dejiyaa ama sidee loo download gareystaa video oo muxuu ahaa aan lahayn hadduu aan leedmo URL link dabcan URL kelmadda ah ergan URL waxa uu taagan yahay inta badan uniform resource locator la website kasta markii muxuu ahaa video uu soo geliyo ama wax uu soo geliyo waxa uu video ga raacsan link mararka qaar waxaa laga yaabaa website-ka haddii aad ku dhufatid right click haddii aad dhahdid inaad videogii aadan linki arkin tusaale ahaan oo kale hadda waxaa laga yaabaa oo kale inaad isticmaalaysid video downloader sida IDM-ka oo kale website-yada qaar marka ma download gareyn kara videoga haddii videogaas uu linkigiisa qarsan yahay ama uusan si toos ah banaanka u yahay u oolin marka casharkan wuxuu ku saabsan yahay marka sida aan u download gareyn lahayn ama aan usoo dejisan lahayn video adiga aad rabtid website aad ugu soo dejisan kartid laakiin videogii ma lahan URL link waxaa dabcan jecelnahay URL link inaad aad fahansantiin waa videoga markii aad right click dhahdid copy URL ku qoran YouTube ko kale arkaysaa laakiin website-yada markay aad gashid kuwa qaarna way ku qoran yihiin kuwa qaarna ma ku qorna markaas maxaa samayn karnaa tusaale website-kan ayaan ku bilaabeynaa oo ah website news ah videogan hadda markaa shidno dabcan waa video caadi soo jeedida waa video sidee usoo dejin karnaa kuwa qaar way fudud yihiin kuwa qaarna way adag yihiin video waxaa samaynaysaa right click markii aan dhahno videogan waxaa arkaysaa wax ma lahan oo muxuu ahaa copy link ma lahan linkigan sidee ku heli karnaa kan hadda aad u sahlan yahay website-yada qaarna waxaa samayn kartaa laba qaab baa usoo dejin kartaa videoga inaad video inspect tagtid oo aad dhahday inspect kabacdina aad muxuu ahaa URL-ka meesha kala baxdid adigoo isticmaalaya JavaScript iyo in aad videogii linkigiisa ka heshid hadda kan oo kale videogiisa aad u sahlan yahay waxaa sameynaynaa Chrome-ka saddexda dhibic ee geeska bidig ugu koreyso dabcan videogan qaybta kore waa idinka qarsantaa sidaa dareemay laakiin qaybtan ay arkaysaa markaa geeska midig tagtid saddexda dhibic ayaad meesha tagaysaa waxaa kasii tagaysaa more tools waxaa kasii tagaysaa developer tools markii aad tagtid waxaa kusoo baxaya dabcan videogii oo dhinac la mariyey iyo sidoo kale waxaa kusoo baxaya qayb code ah oo HTML code-ka ah waxaa tagaysaa calaamadan ah select element in the page element kamid ah dooranayna dabcan intaan dhan waa page-kii oo dhan oo code-kiisa marka ma samayn karno videoga ma heli karna haddaan ka baarno waxaan samaynaa marka select ayaa leedahay videoga ayaad dooranaysaa hadda masaa ujeedid meeshaan select mid mar walba aad dhahdid video waxaa fiirinaysaa marka videoga oo dhan inaad dooratid oo select uu noqdona waa muhiim haddii aad meel kamid a dooratid oo kale intaas ayuu kuusoo bandhiga marka videoga dhan select leenahay click ayaan leenahay qaybtana noo soo baxday dabcan qaybtan waa si aad u sahlan tahay http sida ujeedidba video linkiga waa kana marka meeshaan ayuu ku qarsan yahay hadda linkigan ayaan waxaa leeyahay si fudud copy link address ayaan leeyahay automatically aniga hadda waxaa ii soo baxay download manager-ka waxaa samayn kartaa marka download manager ku dejin kartaa ama waxaa samaysan kartaa oo kale tab cusub ayaa furaysaa marka tab cusub furtid waxaa muxuu ahaa ku base gareynaysaa link video waa kan oo toos ah oo page-kan aan kasoo qaadnay marka right click haddii aad dhahdid automatically inta waxaa ka arkaysaa save video as ama waxaad sidoo kale samayn kartaa copy video address qaabkan waa qaabka koowaad aad u dejin kartid video iska tirno ma baahnin qaybtan kale maaw dabcan videogan haddii aan right click dhahno waxaa arkaynaa waa video shaqeynaya dabcan markaad dhahdid waa video embed laga soo dhahay Vimeo marka waxaan sameynaynaa right click ayaan leenahay waxaan tagaynaa inspect kan marka video markaad tiraahdo save as oo kale inta badan marka aad save dhahdid waxa uu ku save gareynaa HTML sida ujeedidba marka waa kan waa wax muxuu ahaa iska tusaalooyin ah marka inta soo ujeedidba video save dhahdid waxa ku save gareynaa HTML code ayuu ku save gareynaa ama ku save gareynaa MP4 videoga sidee u heli kartaa marka developer tools markaad tagtidna waxaa laga yaabaa inaad ku wareertid kan marka waxaan la soo baxaynaa videoga waxaan sameynaynaa right click ayaan leenahay inspect ayaan leenahay inspect markii aan dhahno waxaa inoo soo baxayo
videogii koodkiisa waxaa imaanaysaa qaybta hoose waxay ayaa soo degaysa scriptigan ayaa waxaa samaynaysaa waa furayna waxaa samaynayna kabacdi scriptigan copy ayaan leenahay double click markii aad dhahdid copy ayaan leenahay okay waxaan isticmaalaa marka hadda aniga notepad plus plus ayaan isticmaalaa noteka waa isticmaali kartaa laakiin notepad-ka iska fiican sidii aad ku heli kartid waxaan sameynaynaa marka new waxaan leenahay window kabacdina paste ayaan leenahay dabcan waa one line dheer sida ujeedid waxaan sameynaynaa marka waxaan raadinaynaa waxaan isticmaalaynaa find mp4 mp4 waxa waaye videoga extensionkiisa u dambeeyo macnaha video player ah waxaan leenahay marka mp4 raadi sida ujeedid waa uu helay qaybtan ugu dambeyso cdn ka agtiisa ayuu ka helay laba qayb ayaa ku jirta qaybtan cdn ka hortiisa ayaan waxaan sameynaynaa marka intan ayaa wuxuu url ki ah waa soo koobinaynaa marka waxaan leenahay noo select garay ilaa iyo waxaad select garaynaysaa meesha ay ka bilaabato http waa ku tegi doonaa okay https kan ayaan ku sameynaa marka waxaan leenahay copy ana hadda automatically waxa soo boodaya idm ka waxaa sameyn kartaa marka aad rabtid waxaa iman kartaa marka new window waxaad ku paste garaynaysaa videogii sida ujeedada videoga inta ayuu nooga daarmaa inta markii aad ku dhufatidna waxaad dhigi kartaa save video as ama waxaad dhigi kartaa copy video address oo markaas kabacdi aad waxaad ku download garaynaysid ama meesha aad rabtid inaad paste ku dhahayd aad sameyn kartid cashirkan waxaan ku qaadanaynay sida video embedded video ah ama video URL link aan lahayn oo qarsan wuu leeyahay dabcan laakiin waa ay qarsan yihiin sidee u download gareyn kartaa marka waxaan filayaa inaad ka faa'iidi doontaan si share gareey asxaabtiina u share gareey wixii muxuu ahaa ka faa'iiday ama santiin